wuxuu yidhi waxaan ahaa mid aanan tukan salaadda sigaarkan afuufa xumahana isaga dhex jira mana aanan dareensanin dembi toobadna haba sheegin waxaan ku farxi jiray inaan ahay muslim naxariista rabbina ay weyn tahay laakiin waxaan ilowsanaa in ciqaabtiisu ay daran tahay qabashadiisuna aanan laga baxsan karin haddaba intaan u gudagelin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar gabalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya hele barnaamijyadeenna hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan mahadsanid weligii masjidka ma aana gelin inkastoo uu masjidka ii dhowaa xilli walbana waxaan maqli jiray aadaanka salaadaha laakiin ma aanan ajiibin weligay bisha rabadaanna marka ay soo gasho waa bisha keliya ee aan tukan jiray waana soomi jiray ma garanayo sababta bishaas baan caabudi jiray balse sidaas oo ay tahay xitaa bishaas ma aanan geli jirin masjidka habeenkii waxaan u tegi jiray saaxiibadayda si aan ula dhafro xilliyada qaarna galab hore baan bixi jiray oo aan magaalada aadi jiray kama aanan fikiri jirin guur carruur mustaqbal midna inkastoo aan wax ku darsaday da'dii 35aad markaan gurigayga ka soo baxaya ayaan waddada hortayda ah ku arki jiray gabar ayada dhan wada xijaaban oo masjidka inoo dhow gelaysa waxaan iska dhaadhiciyey sidii aan gabadhaas kula hadli lahaa oo aan gurigayga ku keensan lahaa naftayda xumaan ayay ii qurxinaysaa shayddaanna bini'aadamka wuu dhagraa iimana muuqato haybadda iyo sharafta ka muuqata gabadhaas markay socotana waxaad mooddaa in waddada ka bax la yidhi derbiga ayay isku dhejin jirtay inta badan waxaan arki jiray iyadoo u socota salaadda casar waxaan go'aansaday inaan la hadlo laakiin iima jawaabto dhowr galab haddii aan sidaas u bartilmaamaysan jiray ayay i dhibsatay galabkii dambe ayayna go'aansatay inay ila hadasho meel aan albaabka gurigayga ka fogeen ayay maraysay markaabay igu tidhi maxaad iga doonaysaa walaal waxaana ku idhi waxba soo dhaaf gurigayga soo gal waa keligay oo qura cidina ilama joogto marka aan hadalka iyo kafta ka badiyey oo ay u jeeddo inaan ahay qof ilaahay ka fog ima canaanan mana aysan iga xanaaqin balse waxay igu xirtay shuruud inay gurigayga soo gasho waxayna igu tidhi gurigaaga waa soo geli doonaa weliba sariirtaada waan ku fadhiisan doonaa haddaad ka soo baxda shuruuddan intaan farxa ayaan ku idhi maxay tahay shuruudda wallaahi waan ka soo bixi doonaa waxay tidhi 40 cisho waa inaad masaajidka ku tukataa salaadaha oo aad casirkii iyo subaxii dhegaysataa daruusta ka baxdo masjidka insha allah kadibna waxay igu tidhi waan kuu fulin doonaa ballantii haye waan yeeli doonaa ayaan ku idhi kadibna way baxday halkii ayaan ka bilaabay anigoo fulinaya ballantii laakiin 2 isbuuc gudahood anigii oo dhan waan isbeddelay waxaan is arkay anigoo oynaya mar walba oo aan ogaado halka aan ku socday iyo baadida ay haysay mar kasta waan ka shallaayaa inaan ilowsanaa hadalkii nebigeenna suuban naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee ahaa annaga iyo gaalada xarigga inoo dhexeeya waa salaadda kii ka tagaana waa gaal toobad nasuuxa ayaan toobad keenay waxaana intaa kadib noqday qof ka qoomameeya falkii uu samayn jiray waxaana noqday qof masjidka ku xihan oo salaad kasta safka hore taagan waxaan helay raaxo iyo iimaan inkastoo aan oon jiray mar kastoo aan soo xusuusto falalkii xumaa subaxii ee 40 cisho ka soo wareegtay ayay ii timid gabadhii salaanta islaamka kadib waxay igu tidhi haye ma kuu fuliyaa ballantii waxaana ku idhi maya walaashay aad baan ooga shallaayaa hadalkii aan ku idhi dhanka kalena waxaan ku farxaa inaad hanuunkayga sabab u noqotay orodoo iska laabo allaha ku xifdiye waxayna igu tidhi walaalkayow waxaan ku kalsoonaa rabbigay inaannu idulloyn doonin in badan ayaan ku hanweynaa inuu ducadayda aqbali doono oo uu ku hanuunin doono kana masaxi doono laabtaada wixii ku jiray mahad waxaa iska leh allihii ajiibay baryada addoontiisa ee dhowray addoontiisa iyadoo ilmeynaysa ayay sidaas tidhi aniguna intaan madaxa foorariyey ayaan ilmeeyey muddo yar kadib gabadhii markay aragtay wanaaggayga iyo sida aan mar walba masaajidka ugu xiranahay way ila soo xiriirtay waxayna ii soo bandhigtay guur kelmadda allah darteedna wuu inoo fududeeyey guurkaas waxayna noqotay xaaskayga aan jeclahay waxayna sidoo kale noqotay
gabadhii sababta u noqotay hanuunkayga. Walaalayaal, ruuxii Ilaahay hanuun la doono meel sahlan ayuu ka tusaa xaqa. Allah subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwa uu hanuunkiisa la doonay una carara xaggiisa xilli waliba. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay rukuma channelkeena Hogan 24 Media adigoo subscribe na saaraya gambaleelkana furanaya si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino channelkeena. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan. mahadsanid.